markaan ka soo tagno qisada barni ee caan baxday maxaa kaloo heesaa oo aad xusi kartaa oo ama iyada la halmaala ama ka gooni ah oo aad ku luuqaysa wallahi saaxiib iyadana hees kaleeto baa jira heesuhu waa ay fara badan yihiin hees aan runtii aan aad u jeclahay oo la yiraahdo heeskan qardho baa la yiraahdaa heeskaas baa jirta dabcan mirahana aniga ayaa sameeyay laxankuna waa laxankii Axmed Nuur Jango Allah yarxamo waan u soo laaban doonaa heestaasi qardho dadweynahana waa u shiidayn doonaa goordhow haddii alla idmo laakiin waxa isweydiin mudan sababta aad ku jeclaatay heestaasi iyo waxay ka turjumayso bal nooga dhacayadana runtii libano waa su'aal iyaduna u baahan in la iftimiyo ama la bayaaniyo qardho runtii waxay ahayd nin dhalinyaro ah isna oo saaxiibkay ah oo runtii aanu isku ardo iyo isku iskoolba ahayn ayaa gabar jeclaaday marka gabadhii uu jeclaadayna waxay ahayd dabcan reer qardho marka qisadii ninku markuu saaxiibkay iga waramay ayaan heeskan asagana u sameeyay qardho maxaa kamid ah ereyadeeda oo aad ka xasuusataa amaba dareen gaar ah leh waxa ereyadeeda kamid ahaa qadowgii nugaaliyo ubaxii qardhooday naftu ku qushuucday ila qaybso caashiqa bal dhageysi wacan heestaasi qardho iyo codka macaan ee Axmed Cabdikariim Biif وروحدادو تعالوي ويخير جلسي وروحدادو تعالوي ويخير جلسي غير كان فوقير إن تغيمو دير تهي إن تغيمو دير تهي غير كان فوقير إن تغيمو دير تهي إن تغيمو دير تهي أدوغي نوغاليو وبحي قردودي نفتكو قشور ديه إلى قيسو عشقها إلى قيسو عشقها إلى قيسو عشقها إلى قيسو عشقها قلنشدي هبلها إيو فرح صبح ذاتها تمر قيمة هديو ورشتو ديقواتها تمر قيمة هديو ورشتو ديقواتها قلدي هوينكاي درنكي قادي قلدي هوينكاي درنكي قادي قروبادي قليسيو
qaybsoomu cashaka ila qaybsoomu cashaka ila qaybsoomu cashaka ila qaybsoomu cashaka waatahay dhegaystayaal inta haddaynu ku dhaafno heestii qardho iyo codkii macaanaa ee axmed cabdikariim biif haddaan usii guda galno badweynta fanka ee axmed biif axmed waxaa tahay fanaan da'yar oo dadweynuhu aad u jecel yahay isla markaasina codkiisu uu dad badan soo jiito maxay tahay bay kula tahay sirta ka dambaysa in sidaani fankaagu u hirgalo adiga oo weliba aad u da'yar aad iyo aad bay bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay ugu mahadsan tahay dabcan qof walba waxa uu leeyahay dareen faneed oo ilaahay ku abuuray amaba hibo uu ilaahay siiyo dabcan anigu runtii kama dhalan qoys faneed laakiinse waa hibo ilaahay uu si gaara ii siiyey runtiina intii aan qurbaha joogay ama dalkaasi Dubai albankaas ayaan ku soo saaray 2008 runtiina albankaas meel kasta oo adduunka ka mid ah waa u gaaray waxaana arintaasi sababay dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogtaa oo runtii aad u jeclaaday heesihii haday noqon lahayd kuwa sameeyay iyo hadii ay noqon lahayd kuwa abwaaninta kale ay sameeyeen intaba waan soo laaban doonaa noloshii qurbaha iyo fankaagii siduu u sii kubcay laakiin dib haddaan ugu laabto waayo iyo boosaaso albunadaadii hore waxaa ka mid ahayd hees miraheeda ay ka mid ahaayeen allow yaa bureeqaay biyo kulule kula taga aday dhamaystiri doonaan u malaynayaa noona faahfaahin doona heeskan waxay ahayd libaanow allow yaa bureeqoy badowle iyo laag iyo barta lagu dalxiisiyo biyo kulule kula taga aad raaxa bogatide waa tahay bal heestaasina waxaan nooga dhacdaa taariikhdii ay ku abuurantay iyo ciddii miraheeda iyo muusigeeda iska lahayd codka waa adiga runtii miraheeda aniga ayaa iska lahaa waxaan u jeclaaday heeskaasi wuxuu ahaa maadaama runtii aan anigu runtii boosaaso aan ka soo jeeday meel dalxiisna ay lahayd meeshaasoo aan waagii aan yaraa ilaa iyo xataa hadda aan anigu dalxiis u tago oo runtii aan jeclaa asbuuc walba inaan dalxiis u tago biyo kulule meelaha sidaas ayaan u jeclaaday inaan dalxiis ahaan u soo qaato markaan ka nimaano biyo kulule iyo dalkii hooyo in muddaahba waxaad ku noolayd qurbaha gaar ahaan waddanka isku tagga imaaraadka carabta magaalada Dubai maxaa kaaga kordhay qurbihii aad ku noolayd ilaa iyo hadda wallahi qurbaha runtii wax aad u weyn ayaa iga kordhay amaba aan oran karaa runtii waxa weeye kullayba aqli aad igu filan ayaan ka soo dhaxlay waayo qurbaha waxaad ogaanaysaa waddankaaga hooyo markii aad joogto iyo waddan qurbaha markii aad joogto waa difference laba shay ayay ku yihiin markii lagu yiraahdo wax walba jawaaskaaga keen halka keen fulaan keen runtii waxa dareemaysaa wax weyn inay ma garanaysaa ay ka bedelan yihiin runtiina fanaaniinta oo dhan waxa qurbaha ku qasbaya hadii wadanku uu sida wadanka aan ku noolay oo kale ahaan lahaa dabcan wadankayagii dhulkayagii hooyo ayaanu jeclaan lahayn oo runtii ku noolaan lahayn dareenkaasi hilowga ah ee dalka aad u qabtid iyo daltabiyadaasi ma jiraan wax suugaan ah oo wadaniyad ku dheehan tahay oo aad ka curisay ama aad ka qaaday runtii waxa jiray hees aan ka tiriyay oo dabcan iyadana xataa muusig soo saaray oo aan aad dhageysan doontaan oo runtii wax yar ilaa muddo hadda meelaha bil laga joogo ayay heeskaasi muusigkeedu iyo nidaamkeedu u dhisan yahay heeskan waxaan leeyahay dalkaygu waa dooxan yahay dadkuna waa daalan yahay damiir u naxo bulshada dulmiga ka qabtaan lahayn danayste aan diirnaxayn danaha ummadda iyo dalkaba doolarka ku bedelanaya dufku baxa dulooba dhaha hogaamiye daacado qabyaalada diidayo dejiye Soomaali weyn eebow ka noogu deeq aamin waa hees aad u macaan isla markaasina qira wadaniyadeed ku abuuraysa qof kasta oo dhageysta haboon hadaba dhageystayaal heestaasi halku dhigeedu yahay dalkaygu waa dooxan yahay miraha iyo codka macaan ee Axmed Cabdikariim Biif